dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn ugu adkeysanaysa in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqonin howlgalka cusub ee bedelaya howlgalka kumeel gaarka ah ee ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS howlgalkaasi oo bilaaban doona sanadka cusub ee 2025 ka oo lagu magacaabo AWSOM. warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aan adag u ka qaatay ama si weyn ugu adkeystay in ciidamada Itoobiya marnaba aysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka cusub Soomaaliya u imaan doona sanadka cusub kuwa oo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta u soo gaaraya Soomaaliya ee wajiga cusub ee AWSOM. dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ayaa khilaaf xoogan hareeyay horaantii sanadkan kadib markii dowladda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Abiy Ahmed uu heshiis la gaaray maamulka Somaliland kaas oo ku aadan in Itoobiya ay Somaliland la saxiixatay heshiis dhinaca badda ah in laga kireeyo dowladda Itoobiya taa beddelkeedana dowladda Itoobiya ay aqoonsi siiso maamulka Somaliland. dowladda Soomaaliya ayaana arintaasi meel adag ka istaagtay madax banaanida Soomaaliya iyadoo dowladda Itoobiya ku eedeysay in ay faragelin qaawan ay ku sameysay madax banaanida Soomaaliya iyagoona arintaas Somaliland ee ah in ay aqoonsan doonto ay ku bedelatay in markaasi Somaliland ay u saxiixdo ama heshiis ay la gaarto dhinaca badda ama xeebaha Soomaaliya in ay ka kireen doonto dowladda Itoobiya. haddaba ilwareetyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay diyaarinayso qorshe ay u gudbin doonto midowga Afrika iyo sidoo kale qaramada midoobay ee ku aadan arinta ah in ciidamada imaan doona sanadka cusub ee kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka cusub ee AWSOM ee dowladda Soomaaliya ay doonayso ama ay sheegtay in cidda ka mid noqon doona ama ciidamadeeda ka mid noqon doono howlgalkaasi ay haatan si dardar leh ku socdaan walibana dowladda Soomaaliya ay diyaarinayso qorsho ah in laga saaro howlgalka cusub in ay qayb ka noqoto ciidamada Itoobiya. arintan ayaan imaanaysa iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan safar socdaal ah ku gaaray dalalka qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AWSOM marka laga reebo Itoobiya. dalalkaasi ayaa kala ah Burundi, Uganda, Djibouti iyo sidoo kale Kenya. madaxweynaha ayaana safaradaasi ku tagay dalalkaasi uu kula kulmay hogaamiyaasha ama madaxda dalalkaasi isagoona kala hadlay qorshaha cusub ee howlgalkaasi iyo ciidamada halkaasi loo soo diri doono isagoona madaxweynaha ugu mahadceliyay si mar walba dowladahaasi ay u garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya in ay cagaheeda ugu istaagto ama ay qayb ka noqdaan howlgalka amniga dib loogu soo celinayo gudaha Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee dowladda Itoobiya ayaa taageero ku waysay heshiiskii horaantii sanadkan ee la gashay maamulka Somaliland ee ku aadan in ay la saxiixatay qayb ka mid ah badaha Soomaaliya in ay ka kireysato maamulka Somaliland taa beddelkeedana Itoobiya ay siinayso madax banaani. dowladda Soomaaliya ayaana arintaasi markaasi si weyn uga carootay walibana madaxda ugu sareeya dalka arintaasi si weyn ugu soo horjeestay heshiiska ay Somaliland la saxiixatay dowladda Itoobiya. Itoobiya ayaana haatan gudaha Soomaaliya waxaa kaga sugan ciidamo qayb ka ah howlgalka haatan si dhamaanaya ee kumeel gaarka ah ee ATMIS walibana ku sugan yihiin qayb ka mid ah gobolada dalka halka ciidamo qiyaastii lagu qiyaasay kumanaan ciidan ah sifo sharci darro ah ay haatan ku joogaan gudaha dalka iyadoona la ogeyn sababta ay haatan ay ku joogaan. dowladda Soomaaliya ayaana aad u codsatay in ay ciidamada Itoobiya isaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya haddii ay noqon lahayd kuwa u jooga nabad ilaalinta ATMIS iyo kuwa kale ee sida sharci darrada ah dalka ku sugan.